runtii waxaa sharaf weyn noo ah dhammaanteen mashruucan oo runtii ahaa mashruuc muddo dheer la sugayey inuu maanta ilaahay u qadaray inaan dhagax dhigno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu dhammaado dabcan waddada tan waxay ka mid tahay waddooyinka halbowlaha u ah qayb ka mid ah ee isku xirta gobollada Puntland oo nolosha dadka iyo dhaqaalaheeda ay ku tiirsan yihiin runtii muddo dheer jirtay burbur badan soo gaaray waxaan insha Allah tacaala maanta halka ka dhagax dhignay 40 kilomitir oo ah maalgelin ka timid dawladda Puntland canshuurteeda ilaahay sidaad ogtihiin wadooyinka la dhisayo halka kaliya maaha waxay ka soo bilowdeen Boosaaso waxay marayaan meelo badan meelo la dayactiray meelo laami sax la dhigay oo hadda ugu dambayso inta aad arkaysaan Rabaable birta dheer haddana ku soo dhow Kalabayr waxaan rajaynaynaa jidka xaarxaar ka bilowdan inuu ku soo xirmo ilaa kaas uu soo socdo midkana uu dhammaystirmo 40 kilomitir inta kale oo hadda bad qabto aan rajaynayno iyagana inta tan gacanta lagu hayo iyagana in lagu dari doono dadkana hadday isku tashadaan wax walba way dhisan karaan waxaad ogtihiin waddada tan muddo badan hawl iyo hadal baa ka jiray laakiin waxaad ogaataan dadka halka isugu yimid waa isku uur dadka Puntland mar walba waxay ku naaloonayaan inay wax qabsadaan oo ugu horeysa inay dawladnimadooda ilaashadaan waxa isku ka haya waxa noo sahlay inaan wax qabsano waxa noo sahlay inaan nabad ku wada noolaano waa nidaamka duminta nidaamka ayaa ka weyn inaan jidad iyo aeroboorro dhisano maxaa yeelay haddaan nabadda iyo nidaamka helin kuwa ma dhisan karno marka taasaa awlaa mar walba in la ilaaliyo nidaamka Puntland in la ilaaliyo nabadgelyada in la ilaaliyo kala dambeynta inta haddii la helo inta kale oo bini'aadan qabsan karo dhan waynu qabsan karnaa waxaan leenahay aqoonteedii waxaan leenahay tabarteedii waxaan leenahay dadnimadeedii waxaan leenahay dhul khayraad badan ku jiro waxaan ku rajo weynahay oo markhaanti u ah muddadii hadda dhowr iyo 27 sano ay jirtay meeshii Puntland laga soo qaaday iyo maanta meesha joogto ayaa daliil u ah inay dadkani ay ku filan yihiin inay wax qabsadaan waxaan rabaa inaan aad u bayaanino wadadan oo muddo badan hadalkeedu ka jiray in mashruuc African Development Bank ka yimid uu ahaa inuu halka dhiso dabcan waxaan ka shaqaynaynaa wax 4 sano ka badan waxaan intaas u gogol xaareynay inaan wadada helno annagoo ilaalinayna sharciga dawladda Soomaaliyeed iyo kan Puntland waxa ugu horeysay Puntland ka shaqeysa waxay nidaamka iyo sharciga inay ilaaliso wixii ku xiga marka la qabto markaan ka kari weynay inay nidaamka dawladnimada ilaaliyaan waxaan ku darnay inaan qaybtan oo marka hore dib u dhiganay inaan ku talagalnay inaan mucaawino ku helno inaan iyadana ku talagalno mashaariicdii kale aan wadnay oo dhismaha wadooyinka isku tashiga inay qayb ka noqdaan marka insha Allah tacaala waxaan rabaa dadka laabtooda inay u qabowdo dawladdan waa dawladdiina idinka iska leh taladeeda idinka iska leh haddaad kor u hadashaan iyo haddaa hoos u hadashaan labadaba waa in maqlaynaa ama ku qayliya ama hoos noogu sheega mar walba waxaan maqlaynaa codkiina waxa aan tabarteenu tahayna waa ku talaabsanaynaa wixii aan kari kalinna waa inii sheegaynaa waxa ma kari karnaa ilaahay hal midna yeeli mayno wax idinka ili burburinayo inii gudoomin mayno ilaahay idinkiis wixii dantiina waan ka shaqaynaynaa wixii dalkan ilaahay nagu ogyahay u qabanaynaa wixii aan kari karnana waa ka shaqaynaynaa intaas asal ah intaas in la isla gartaa la rabaa waxa la rabaa annagoo isku duuban oo kala qoqobnayn shacab iyo dawlad dhalinyaro iyo waayeel ismo iyo waxgarad kale aqoonyahan siyaasi nin kastoo ha ahaado horumarka dalka waa inuu naga sinaadaa kuma kala qaybsanin kaas waa inaan u midownaa wixii kale aan ku kala duwannahay waa meeshaada iyadana waxay leedahay xifaaltanku waa meeshiisa sidiisu u socon dardaarankeena ugu muhiimsan waxa weeye nabadgelyada gobolka Mudug waa muhiim gobolka Mudug wuxuu ku yaala goob xasaasiya wuxuu leeyahay dhinac walba xuduudo dhaadheer kuwa uu galmudug la wadaago kuwa uu kililka Soomaaliya Itoobiya la wadaago
وميل حساسي أو باهن إلى علم بدن dadkeedu waxa weeye Ethiopia waa ku jira Puntland waa joogaya Soomaaliya marka waxaan u baahanahay dhalinyaradaas mararka qaarkood falalka dambiyeedka ka dhacaya oo hadda awood u leh inay si dhaqso ah u tallaabaan si ay maaragtay dambiyada ay galeen oo la dhuntaan waxay u baahan tahay si wada jir in wax looga qabto waxa muhiim ah colaadda qabiilada in hoos loo dhigo waad ogtihiin meeshu markay xasaas tahay waxay u baahan tahay nabadgelyada qori iyo xabad lagu xasilin karo gobolka Mudug waxay lagu xasilin karaa waa is-afgarad oo aan uga dambeeyno ismada dhaqanka iyo nabadoonnada iyo inta samaha jecel dawladdu ay gacan ku siinaysaa maadaama xinifta u badan qabaa'il ay ka timaado midda ka dhaxaysay maalmihii u dambeysay beelaha Sacad iyo Leelkase oo runtii hadda aan rajaynayo in wada hadaladeedii ugu muhiimsanaa ay dhawaan bisha 9keeda ay bilaaban doonaan waxaan rajaynayaa inaan guud ahaan annagana gacan baan siinaynaa waxaan halka ka sheegaynaa guddigii dhinaca Puntland waan aragnay waxaan rabnaa inaan gacan weyn ku siino sidii loo heli lahaa nabad islaaxada oo dalkan u horseeda horumarka gobolka Mudug iyo horumarka gobolada kale ee Puntland intaba dawladda mas'uul baa ka saaran mid walbana wixii tabarteeda iyo karaankeeda ay ka qabanaysaa dabcan duruufteena iyo dhaqaalaheena iyo marxaladda dawladnimo aan marayna intaasba inta halka joogta ma mooga annagoo intaa tixgelinaya annagoo intaas maaragtay eegayna haddana waxaan rabnaa siday u kala horeeyaan inaan u kala qaadno jidku muhiimadda koowaad buu hadda leeyahay marxaladan marka laga hadlayo dib u dhiska dabcan waxa ku xiga airportada waxa ku xiga dekadaha waxaan rajaynayaa iyadana garoonka gaalkacyo oo muddo badan ay hawr ka jirtay waxaan rajaynaynaa iyadana dhawaan war farxad inaad ka maqashaan waxaa socda wada hadallo ganacsato reer Puntland ah ama Soomaaliyeed ah ama reer Mudug ah ayaa waxay wadaa qorsho ay rabto inay la timaado dawladana qorshayaal kale wadaa qorshayaashaas oo dhan intii la isu geeyay ayaa midka ugu habboon oo ugu wanaagsan la qaadan doonaa sida ugu muhiimsan waxa weeye midka ugu degdeg badan baan hortaminta siinayna haddii ganacsatadu ay diyaar tahay birritaba waa ku wareejinaynaa haddii wax qorshaysan la yimaado ciddii kaleeto la timaado oo shirkado kaleeta oo sida garoomada kaleeto aan mararka qaarkood maalgelinta dibadaha ugu raadinana waa imaanaysaa arrinta dekada Garacad oo muhiim ahayd waxaad ogtihiin muddo waxaa socday wada hadal shirkad ajnabi ah oo dalka Imaaraadka ah iyo shirkadii wadaagsin waxaa socday wada hadal dhinaca farsamada ah alxamdulillah labadii shirkadood oo aan cidi ku dhex jirin oo dawladdu ku dhex jirin oo dawlad kale ku jirin labadii shirkadood ayaa muddo ka wada hadlayay arrimihii farsamada oo dhan way soo dhameeyeen iyadana waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badan inay arrintaas u hirgasho waxaa muhiim ah arrintaas waxa weheliyo wadada Garacad isku xirta Turdibi oo ah marin muhiim u ah dhaqaalaheena waxaa sidoo kale dawladda Ethiopia wadadaas iyadana in ay iyadana xuduudda keento si hadii ilaahay كل يدين كأيجا بدي يورر دولار وحنا ملانا وردير وسوقار سوسات ما يا وسودو ده سما أنت كلنا وسوقار سيندونا هدي لا هيدنو وحن رجينا دقالة إنه دنا والبوط اللابو هدي دقالة إنه دنا والبوط اللابو وقرع سجين ودنا والبوط اللابو خاصة ملك إثيوبيا عشورة الدولة ده كرو كعيسى هدي عشورة الدولة ده كرو كعدنا أديك الدولة ده كرو كعاية حيابها أديك وقومهم سيين أيام قبل دونا هدي لا هيدنو لحدا صنو Soomaaliya marna dawlad ahayd marna burbur dawladeed ku jirto 65 sano maalin loo dabaaldegay taariikhda intaan hubno lacag cashuur lagu qaaday oo 1 kiiloomitir oo jida xataa lagu dhisay kana ugu horeeyay Puntland qabatay 30 sano dawladda Soomaaliya ay jirtay jidadka ay qabsatay oo kan kamid ah hadda burburay mucaawinad dibadeed baa lagu wada dhisay عشور ضد كصومالي لغا قاعد لغو مدس لكن بنتلان waxaa inagu filan inta hadda aan soo qabanay baa anaga noogu filan maaragtay war sax wararka mararka qaar kood
هذا الخطوبة ترارح بس كده شلي وزيرك وربو شغل لكن سجنا كلارفيكيشن كبحيانه مشروع جي بي جي دليرادي u shaqeyn jirtay oo mushaharka badan qaadan jirtay oo consultant ka ahayd hadii uu mashruuci dhamaaday dawladda Puntland awood u male inay nin qofkiiba kumaan kun oo dollar siiso shaqaalaheedu waxay leeyihiin grades bay leeyihiin budgetkeedu wuxuu leeyahay grade-kaas ninkii aan ku qanacsanay kuwa badan oo reer Puntland magaalada jooga markuu mashruuca ka dhamaado meelahooda aad Soomaa kaas macnaheedu ma aha dawladdu inay lacag weyso hadii dawladdu lacag weysay jidka kala bayr iyo dhibirta dheer ka soo arka jidina dhisi karno waa ogtii la qofka dhahay mushaar bay weydo jid ma dhisi karto hadda qofka hadaan kan ka bilaabi lahayn waan la dhihi lahaa waa qaadan lahayn eedaas laakiin hadda ma wadnaaba hadda wadnaa ma garatay marka waxaan rabnaa dadka ka dhex shaqaysanaya maaragtay wax ka dhex raadadina meelaha qaybtooda waxaan qabaa dan nooguma wada jirto halkaas in siyaasadda la gelin siyaasaddu waxa la rabaa horumarka inaysan ku laaban oo kaas uu noqdo wax noo siman laakiin hooska tuurka kaleerto iyada waa iska ogolnahay ninkii qaadanay xilliyada doorashada jirta ninkii wax xudanayo anagu ma diidanin waad ogeedeen oo doorashada markay maraysa dhulkaan oo dhan baan marnay وريل ما ديريال وعود كنصيص وصاص اللي ما لهين ما واحد كلا ينقول سبعين هذا أنا مركز دور شكل تواد سيدي يوم باني ورندون هذه لا نينكي كلا ترى وأوفرنده حسبية كجرا دلك لكن وحنا روا أرنت كوسا أبسن دولة الصومالي بنت لنا واحد كده عيان نينكي حد حمر وحكوهيس هران وش يقول هذا أروح كهل دماغه إذن كهل دورنا لكن نينكي دل بنت لنا نوضه وعلى الربا إنه وحنا دونته دنت Puntland الدفاعه وإذا سجى خلدني وحش هذا واحد دونيسي معناه هذا ما عدد كاجا حسابتي إن أتكتر على حديد مرول بالدفاع ماشان أي قفك مسؤول كهالك اللي قد دورته واجب كوه مدة الصوماليين واجب كويه قفك أنا شكون ميسامي كرين لبضة هدينه سياسة سجتها اللوقات قد بدينا عبر برينا وعلى الربا واحد اللي شكون ميسامو وحنا وضع لنا وحنا واكل لنا ورقاس بوح خلدن با يا فدرالكم معنيه سوا اساس وحنا وضع لنا وحنا واكل لنا مرمر با قوليها حمر جوحي لهان وحي ليه وحاجه كل ليه بيدها marka xamar bay u qaateen kaligood inay leeyihiin haday kaligood yeeshaan caasimada Soomaaliyeed bay weynaysaa hadii xamar ay noqoto caasimada Soomaaliyeed waa la wada leeyahay iyada waxna waa la kala leeyahay oo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabelle iyo nin walba wuxuu leeyahay horta federalism waxa la rabaa inuu dadka si khaldan yuusan ugu dhicin sida saxda in loo fahmo la rabaa anu macnaheedu markaan Puntland ilaalinahay ma aha inaan Soomaalinimadii ka tagin Puntland xaq bay u leedahay Soomaaliya xaq bay u leedahay mid walbana xaqaas waxa la rabaa xaq sharci ah inuu noqdo mid caadifada lama rabo sharciga hogaamiye siyaasadda haddaanan sharciga lagu dhaqmaynin waxa laga shaqeynayo waa wax aan wanaag ku dambeeyay waxaan rajaynayaa insha Allah ma ku talagelin inaan war badan halka sheegay laakiin waa ila gashay rag badan oo halka joogo ayaa ma dhaweyto si khaldan wax loo geliyaa in muuqday marka waa wada hadleynaayo hadalkan waa isaga caafimaad ku jira Soomaa in la wada hadlaa fiican idinkana waxa weeye hadaan soo gaari weydaan حتى مشكلة ما الميكروفون كنا جالسوا جالسين هلك كقيلي وحنا كمان قلنا وحين وناقص ما قاعدنا وحين خلدنا صاروا قالوا لنا وركدا يا هالكاس إن لو وضع الله أما توس وأنا وضع لنا أما هو ذا كوضع لنا ثاس واحد يبغى يلاقي ماله قفكوا نقوم خلدنا بل يرد مرة كار كود لوبي كبرت ضدكوا قلب حين ونبرشر جرينا أنا قارن لكوا برشر نصارى وحي aad rabtaan nagu baalkeeya wixii aan qaban karno waa qabanayna waxaan qaban kari weyno waxa leenahay war waxaan lama qaban karo ama waxa kan dib noogu dhiga intaas ceeb noqon mayso insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah intaas inay nagaga filan tahay kullay waxay la tahay dawladda ana ugu filan isimada oo aan siiyay say la tahay soo saas ma ya